السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومختار عنا شوية قصص سلامية أوسلو نوروي دمانتي ومهدسنتين قلب ونكسن waxaan daawaday video yar oo laga sii daayay xafiiska farmaajo videogaas runtii ma taariikhsanayn laakiinse waxa uu farmaajo ka hadlayay arrimahan geeska Afrika ku soo kordhay sida jujuubkan Soomaaliya lagu hayay leeyahay waxaad la midoobeysaan Ethiopia iyo Eritrea wuxuu yiri waa sidoo isagu u dhigay Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraheeda Abiy Ahmed waxaan kala hadlaynay sidii ay Ethiopia uga dayn lahayd faragelinta ay ku hayso Soomaaliya waxa kale oo kala hadlay buu sidii Soomaaliya Ethiopia looga dhis lahaa isdhexgal dhinaca dhaqaalaha ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo economic integration laakiin su'aasha meesha taagan waxa weeyaan maxaa loo degdega meesha jira muxuu yahay waxa taa ka sii muhiimsan Soomaalidu waxa tiraahdaa shimbiri maalin bay dab qaado dunia ay gubtay farmaajo muddo 2 sanadood in ku dhaw aamusnaa inkastoo dhibaatooyin badan wadanka ka dhacayeen qaraxyo ka dhacayeen dad ku dhimanayeen dhaqaalihii burburay siyaasadda arrimaha dibadda ay wareertay baarlamaankii afduub ku jiro argagixisadii ay soo badatay ciidamadii Soomaaliyeed ama xoogii dalka Soomaaliya dhibaato dhaqaale fara badan haysato magaalo la xoreeyay 2 sano madaxweynaha aanay wali jirin waxaasoo dhan kama hadlin laakiin waxaad moodaa inuu Abiy Ahmed iyo Afwerki oo Ethiopia iyo Eritrea xukumo inuu difaacayo si kasta ha noqotee waxa jiray qorsho dhaqaalaha ama waxaan economic integration la yiraahdo lagu samaynayo geeska Afrika oo ay wadeen wadamada ay ku midoobay waxa loo yaqaan IGAD wadamadaas oo Kenya, Soomaaliya, Sudan, Koonfurta Sudan, Kenya iyo maxaa la yiri Uganda su'aasha meesha taagan waxa weeyaan maxaa hadii ujeedadu ay tahay in dhaqaalaha la kordhiyo suuqii baaba ballaadhnaayo 8 wadan oo kale oo Soomaaliya ku jirtaaba furan maxaa loo degdegayaa looga tagaysa wadamadii kale oo dhan maxaa Soomaaliya loo jujubaya hadiise la leeyahay in bariga Afrika ba laga tago hal isku soo koobo waxa la yiraahdo Horn of Africa inkastoo Horn of Africa Kenya ba ku jirto lagu daro maxaa looga tagay wadankii Soomaaliyeed la yiraahdo Djibouti xoog iyo maal iyo muruq muddo dheer si walaalnimo inoola berber taagnaa maxaa Djibouti loo faquuqaya maxaa looga tagay maxaa loola tashan waayay maxaa iyada talada loogu soo dari waayay marka meesha muuqda waxa weeye arintani maaha midayn dhaqaale laakiinse waa midayn wadamo gaara oo dan gaara ay wataan oo la leeyahay Soomaaliya aan jujubno midnimada Ethiopia iyo Eritrea aan ku soo darro Soomaaliya sawirray sii deysay dawladda Ethiopia oo ku saabsan shirkii lagu qabtay Gondar iyo Bahardar ee madaxweynuhu meesha tagay waxa ka muuqday sawirada farmaajo oo labada dhinac laga fadhiyo oo aad moodo wiil yar oo maaragtay la qasbayo la maaragtay labada dhinac laga fadhiistay waxa ka muuqday isagoo faraha lagu taagayo oo moodo in amar la siinayo oo protocolkii dawladnimo iyo anshixii madaxweynenimo iyo anshixii madaxweyne qaran dhan matala oo wadan shisheeye jooga midna aan la siin waxa kale oo ka muuqday nin lunsan oo aan runtii ogeyn meel uu socday iyo meel uu ka socday iyo dadku matalaya dantiisu waxay tahay si kasta ha noqotee su'aasha meesha taagan waxa weeyaan goorma laga waantoobayaa in Soomaaliya marka iyada dhibaato soo dhex marto in wadan shisheeye lagu carro dad shisheeye lagu carro leeyahay dhexdhexaadiya madaxweynuhu farmaajo wuxuu madaxweynuhu yahay waa Soomaaliya maxaa uu Soomaaliya oo midayn kari waayay oo dawlad goboleedyada ay ka goosteen dawladii dhexe sidee uu oran karaa waxaan midaynayaa Soomaaliya iyo laba wadan oo kale taasi miyaanay ceeb ahayn waxa soo macquul ah ma waqtay arinta kale meesha taagan waxa weeyaan waxaan uu samaynayo farmaajo ka hadlaya waxa waqtahay waa kici kari weyno waa socon weynaan carabno taasina aqal gal maaha imika warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea waxa ku taala waxay leeyihiin waxaanu samaynaynaa dawlad federaal oo dhexe oo u dhaxaysa Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia taasoo shaqada ay qabanaysa ay tahay difaaca monetary policy ama arrimaha lacagta arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo maxaa la yiri immigrationka afarta arrimoodna waa afarta qodob ee ay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay Soomaaliya ka qabato afartiina way qaban kari weydo waxa ka taagan
dhibaatooyin badan baa ka taagan dowlad goboleedyadii baa saan soo sheegnay dowladdii dhexe ka goostay waxna way qaban kari layiin markaa farmaajo siduu u damcay ama uu u samayn karaa inuu yidhaahdo waan socon kari weynay soomaaliyan wax ka qaban kari waaye laakiin waxaan midayn karayaa 3 waddan oo kale oo iyagaba dhibtoodii taagan tahay anigu waxaan u arkaa arrintaas inay waali tahay anigu waxaan u arkaa arrintaas inay tahay jariska xoor anigu waxaan u arkaa inay arrintaasi tahay caqli darro waxaase u muuqataa Ethiopia oo rabtaa inay isticmaasho siyaasadda loo yaqaano walk the dog oo macnaheedu yahay haddii arrimaha guduhu ay ka khaldamaan inaad samayso carqalado siyaasadeed oo arrimaha dibadda si aad dadka wajigooda iyo maskaxdooda iyo maankooda siyaasadeed ugu jeediso dibadda taasuu wataa Abiy Ahmed taasay Ethiopia wadataa taasuu wataa maxaa la yidhi Afwerki farmaajona tiibuu iska uu calanka u qaaday isagoon ka fikirin ummadda Soomaaliyeed uu madaxweynaha u yahay dantooda waxay tahay matalan dhaqaalaha mideynta Ethiopia iyo Soomaaliya maxaa danayna ugu jirta innaga waa in la isweydiiyaa warbixin ay soo saartay shalay oo taariikhdu ahayd 13 bishii November 2018 wasaaradda maxaa la yidhaha ganacsiga Ethiopia waxa ay sheegtay in $500 billion ama 500 milyan in ka badan oo ay ka soo gashay bushcuradii ay u dhoofisay Soomaaliya taa macnaheedu waxa weeyaan Ethiopia sanadkiina soo dhaafay 2017 waxa ka soo galay in ka badan $500 billion oo ah wixii ay u dhoofisay Soomaaliya taas inteeda badan waxa weeyaan qaadka innaga se maxaa Soomaaliya ay u dhoofisay weeyaan su'aasha meesha taala inagu waxaynu dhoofinay ilaa hadda ma haysano Ethiopia waxay haysataa beero inagana Soomaaliya waxaynu haysanaa waa beero iyo waxa la yiraahdaa livestock ama xoolaha nool marka labadii midna Ethiopia inaga iibsan mayso tooda inaga jaban iyaga inaga dad badan iyaga inaga dhul ballaaran sida marka waxa weeyaan dhaqaalaha la leeyahay waa la midayn ugu jirtay inaga inooguma jirto waxba inagu waxaynu haysanaa khayraad dabiici ah waxaynu haysanaa oil and gas waxaynu haysanaa dekado laakiin taa waxa weeyaan intaynaan oran Ethiopia la siinaya waa in laga fikiraa arrintan inay dani noogu jirteen kale ta kale farmaajo meel kasta u tagay kaligii buu carara wasiir ma ka haysto xildhibaan ma ka haysto heshiisku soo gaaray cidi uma sheego imikana waxyaabahan uu ka hadlaya uu video ku sheegay wax aqal gal ma wax suuragalna ma waxa wuxuu ilowsan yahay malaynaya farmaajo inuu shirka uu tagay laba nin oo kale la fadhiyeen labadii nin oo kale ay dadkoodii u sheegeen wixii lagu heshiiyay farmaajona uu rabo inuu marin habaabin iyo been abuur dadka ku maaweeliyo tiina socon mayso waxaad moodaa markaa madaxweynaheena farmaajo inay saacadu kaga banjartay 1960 oo aan television iyo radio iyo internet iyo social media midna jirin marka wax kasta oo wadanka ka dhaca gees kasta ka dhaca adduunyada ka dhaca instantaneously ama muddo daqiiqada gudahood ayaa adduunyadu ku ogaanaysa marka madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa warniyo waxaas madaxweyne u tahay waa Soomaali annagaad madaxweyne noo tahay Ethiopia iyo Eritrea midna madaxweyne uma tiid marka danta Soomaaliyeed waxay ku jirta ka shaqee baarlamaankan aad burburinaysaa joogteen iska daayo baarlamaanka la tasho dimuqraadiyadii iyo wada hadalkii iyo dib u heshiisiintii Soomaaliya laga waday taas ay tahay inaad ka shaqayso madaxweynayaashan dowlad goboleedeed la dagaalamaysa iska daa madaxweynayaashana waa walaalaha iyaga Abiy Ahmed kan aad walaalo ka dhiganayso leedahay ku soo dhawow gurigaagii inaad tiraahdo ku tiraahdo Axmed Madoobe iyo Cabdi Wali iyo raggan kale iyo wasiirada iyo maxaa la yidhi xildhibaanada asaa ku tiraahdo wali nin dowlad goboleed xukuumad tiri walaal Muqdisho ku soo dhawow magaalo madaxdaadii ma jira Abiy Ahmedna waxaad ku tiri waa gurigaagii labaad ee ku soo dhawow war sidee xagee wax ka khaldan yihiin arrinta meesha taagan waxa weeyaan ta kale goormay Soomaali ka midoobaysa ama ay yani garanaysa inay dantoodu ku jirto inay wada hadlaan maxaase caasimad shisheeye iyo wadan shisheeye iyo dad shisheeye loogu cararaya la leeyahay heshiisiya arrintaas aniga aad bay ila badan tahay arrintaa waxa muhiim ah in laga taxadiro in laga heshiiyo in la wada hadla ayaa aniga ila tahay salaam